common health problems dhibaatooyinka caafimaad ee caadiga ah ama dhibaatooyinka caafimaad oo badanaa dhaco camal. lesson 29 casharka 29aad. headache waa madax xanuun. fever qandho. fever qandho. I have a fever. qandho ayaan qabaa ama qandho ayaa i hayso. qandho aan qabaa ama qandho ayaa i hayso. I have a fever. waxaan filayaa Soomaaligeeda oo fahmaysiin wax kasoo complain garay ma arkin ama kasoo cawanayo ma arkin. dizzy waa wareer. marka wareeraysid ama dawaq af Soomaali kale lagu dhahaa wareer waa dizzy waa wareer waa dizzy. alafu marka caabuq kasta ama xanuun kasta sawirkiisa ayaan soo qaatay sida u fahantiin. I am feeling dizzy. waxaan dareemayaa wareer. I am feeling dizzy. haddaad ku cusuban tahay kanaalkan fadlan wax ka fahmi weysid isoo sheeg, ila soo wadaag. af Soomaaligaada fahmi waaye ama dhawaaqana fahmi waaye isoo dheh. cold ama flu. cold waa hergebka kan fudud ayaa la dhahaa. fluna waa hergebka midka qandhada qaba, lafa xanuunka qaba, hergebka daran ayaa la dhahaa oo waqtiyada badan qaadanaya. flu ayaa la dhahaa. I have a cold or a flu. I have a cold. hergeb ayaa ahayo, hergebka sahlan cold ayaa la dhahaa ama common cold waa hergebka sahlan. fluna waa hergebka zaidka ah oo qandhada iyo waxaas dhan qabo. blocked nose ama congestion. blocked nose or congestion waa cabur ama sambuux markuu sanka ku xiran yahay ayaa la dhahaa blocked nose or congestion. My nose is blocked or congested. My nose is blocked or congested. sankeyga wuu cabursan yahay ama sankeyga wuu xiran yahay. My nose is blocked. My nose is blocked. markana maxaa jira waxa la dhaho nouns iyo adjectives. nouns waa magacyo, adjectivena ama verbs maxaa waaye adiga sidii action kama la dhahaa. runny nose markale ayaa noo kala bixinaa labadaas. runny nose waa san diifsan ama san qulqulayo ayaa la dhahaa. runny nose sanka biyaha markay ka daadanayaan ama diif ka daadanayo runny nose adii. runny nose. sneeze waa hindhiso. xanuunyada badana ay bilaadanka la kulmaan ayaa kuwan maanta baraneyno. I am sneezing waan hindhisayaa. so sneeze hadeyti maxay ahayd noun maxaa waaye waa magac. sneezing waa adjective ama verb. insha Allah ficil camal ayaa laga wadaa. insha Allah mar kale ayaan baran doonaa ayadana. I am sneezing waqtiyalka qabowga camal sanka markuu qabow ka galay ama sanka ay bus ka gashay ama boor ayaa hindisioni ama maxaa dhihi. I am sneezing. cough sidan ugu qoray calaamadan gudaha
ayaa loo aqrinaa cough English ahaan waa midaas kale siida ka bilaabani ama caada. cough waa qunfac ama qufac cough waa qunfac. I am coughing waan qunfacayaa ama waan qunfacayaa. I am coughing. English keenana waa British pronunciation ayaan isticmaalaynaa ama British English ayaa la. Mouth ulcers waa boogaha afka. Faruuraha ayay ka geli karaan, carabka ayay ka geli karaan. Calaamadaas yar oo kooban ayaa la dhahaa mouth ulcers. Carabka ayay ayadana geli kartaa, cirridkay geli kartaa, faruuraha geli kartaa. I have a very painful mouth ulcers. Waxaan qabaa boogaha afka oo aad u xanuun badan. I have maxaa waaye waxaan qabaa a very painful mid zaid u xanuun badan, like boogaha afka oo zaid u xanuun badan. Very waa zaid ama aad. Tooth waa hal ilig. Teeth waa ilko. Egna waa xanuun. Toothache waa ilig xanuun. Teethache waa ilka xanuun. Toothache ilig xanuun. Teethache ilka xanuun. waa kala bixin kartiin oo maleena farqigaas. Toothache iyo teethache. I have a toothache. waxaan qabaa ilig xanuun. I have a toothache. waxaan qabaa ilig xanuun. Tooth cavity ama teeth cavities. Tooth cavity waa ilka dalool. Teeth cavities na hadii lagu dhaho ilkaha markay badan yihiin ee dulaalaan waaye. Cavities waa daloolyo. Ilmaha ay dadka waaweyn hogalaa ilkaha dulaalo ayaa la dhahaa cavities waa daloolyaha ilkaha. Cavity-na waa markay mid tahay, cavitiesna waa markay ay badan tahay. Sore throat cuni xanuun. markuu hirgab kugu dhaco ama kugu soo socdo cunaha dadka xanuunayo. Sore throat marka horena jirka ayaan hore isku soo barnay casharadeyda kale. Stiff neck waa qor xanuun. qoorta marka aad dhaqaajini karin camal intay ku xanuuntay, dhinac fiirin karin, gadaal fiirin karin, hore la fiirin kartid, aad dhaqaajin karin ayaa lahaa stiff neck qor xanuun. I have a stiff neck waa qor xanuun. fadlan hadaa rabtid inta luqada baratid cashar walba aan barano meel ku qoro. Rashes waa shucacyada jirka kasoo baxaan nabraha yaniiska oo finanka ahayn ayaa laga wadaa. nabraha yariiska markay kuleel jira camal, dadka saliida qabaan mararka qaar kusoo baxo ama dad iska caadi iskaga soo baxaana jirta. Rashes. High or low blood pressure. dhiiga kore ama dhiiga hoose. dhiigkar waaye. dhiigkar waa blood pressure waa dhiigkar. highna waa kor, lowna waa hoos. asthma waa neef. qofka markuu neefsani karin oo neefta jiidayo, neefta ku dhigayso mararka qaar dadka qaar la suuxaana jirta. baashaan afka lagu dhuuqaayo oo lagu buufinayo inhaler ayaa la dhahaa. qofka kaas badana dadka kuwaas wataan asma ayay qabaan ama cudur neefeed. stomach ache waa calool xanuun. waa stomach ache.
ache waa calool xanuun. vomit waa matag ama mantaq. vomit waa matag. nausea ama nausea waa lalabo. nausea like something like that. lalabo nausea dhihi kartaa. arthritis waa bararka kala goysida jirka galo ayaa la dhahaa. arthritis bararka kala goysida jirka galo, jilbaha, gacmaha, xibnahaada. diarrhea waa shuban biyood. ka kale istaaga lahayn oo biyaha ayaa la dhahaa diarrhea waa shuban biyood. constipation waa calool fadhi ama calool istaagsan oo soconaynin ayaa la dhahaa. wax walba waa cuni, caloosha ay fadhiisanayaan. constipation ayaa la dhahaa. I have a constipation, calool fadhi ayaan qabaa. I have a constipation, calool fadhi ayaan qabaa. I have a constipation. dhakhtar af Soomaali kaseen camal u tagtay ama qof ku daaweyn rabo af Soomaali kaseen. I have a constipation adi. I am constipated. caloosha ayaa fadhiso. hadii intii hore ayaan usoo dhahay noun iyo wax adjective la jirto. noun waa fadhiga, hadii intii hore usoo qaadanay. swelling waa barar. bararka indhaha geli karaa, luguhu geli karaa. swelling ama swollen leg ama swelling on the legs ama on the eyes ay dhihi kartaa. bruise waa nabarka dhiiga fadhiisto, meesha jugkaaga dhacda camal ama dharbaaxta lagugu dhuftay ama ul lagugu garaacay, dhiiga meesha fadhiisto ayaa la dhahaa bruise waa nabar. scratch waa xagdin ama xagtin. marka cajahaada isku xagatid, geed ama ku xagto ama wax ay ku xagtaan ayaa la dhahaa scratch. wound waa boog. nabar iyo boog way kala yihiin uma filayaa. wound maxaa waaye nabarka ama boogta jirkaada ka furan ayaa la dhahaa. jirkaada like meeshay ku yeesha camal, maqaar ma saarna camal, maqaarkay goostay camal gudaha marka arkiis. waa fahanteena u maleynayaa. fadlan hadda af Soomaaligeeda ku yar wareertay isoo sheeg ama comment ku qor, qofka ayaa kuu soo jawaabayo. hadda kanaalkan ku cusuban tahay subscribe saaro, notification-ka on ka dhigo iyo like gray. hadda xayasiin aragtidna ha ka boodin. mida kale TikTok-teyda hoos ayaan kusoo qoray. dad badan ayaa isoo weydiinayeen comments-ka, hoos ayay ku qoran tahay. in hadda TikTok ku jirtidna magaca YouTube hoos ayuu ku qoran yahay. wassalaamu calaykum waraxmatullaah.